اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. maxkamadda dhegeystayaasha xiriiryaha eedeysanayaasha iyo dhibanayaasha iyo qareenada assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. salaan ka bacdi annagoo kale ah qareen mustafa maxamed jaamac, qareen xabiib cabdullaahi ciise, qareen axmed salaad maxamed, kana tirsan ururka qareenada ee kalkaal, qareenana uu ah cabdifataax cabdiraxmaan warsame iyo cabdisalaan cabdiraxmaan warsame. waxaan maxkamadda rafcaanka ee gobolka nugaal halkaan ugu soo gudbinaynaa rafcaan aanu ka qaadanay xukunkaas sumadiisu tahay ma-da-ka isbaaro ga-na isbaaro 963 isbaaro 2019 kuna taariikhaysan 12-kii bishii shanaad 2019 kana soo baxay maxkamadda darajada koowaad ee degmada Garowe. asbaabtii rafcaankuna waa sida tiriyada faahfaahin. mudane guddoomiye garsoorayaal, halkan waxaan idinku soo gudbinaynaa asbaabta rafcaanka aan ka soo qaadanay waana sidan. waxaan ku soo qaadanay asbaabta rafcaanka 26 qodob oo aanu aaminsanahay inay maxkamaddu hareer martay ama aanu tabasho ka qabno oo aanu durayno. qodobka koowaad, maxkamadda darajada koowaad ee degmada Garowe waxay hareer martay dhammaan hababkii qaanuuniga ahaa ee maxkamaddu raaci jirtay. maxkamadda waxaa hadba dadka hortooda kula faqayay xeeryaha guud ee dowladda Puntland, isagoo dhinaca ayuu maxkamadda hortooda kula faqayay. sawiraanu ka haynaa, markhaatiyaal la walahay, beenna sheegi mayno, ummadda dhan baa markhaati ka ahayd, halkaas kula faqayay. hadda ka hor xeeryaha guud wuxuu ka hadlay idaacadda BBC-da, wuxuu yidhi waxaa la hayaa 10 nin oo eedeysanayaala, 3 ka mid a dembiga waa ku cadyahay, xukuumadda waa la saarayaa, xukun waa lagu soo ridaya. sidaas ayuu yidhi. waxaana iswaafaqay xukunkii darajada koowaad iyo xeeryaha hadalkiisii. waxaad moodaa xeeryuhu inuusan eedaye ahayn xukumo uu ahaa. kiisku wuxuu ku bilowday qaab daahfurnaan ah oo meel kasta laga daawanayay, isla markiina wuxuu isu bedelay qarsoodi. maxaa sababay in maxkamaddu qarsoodi ay noqoto maadaama sida hadda loo daawanayay? qodobka afraad, annagoo aan goobjoog ahayn ayaa si qarsoodi ah marka buugga la siiyaan na siinayna guddoomiye, buuggii halnala siiyo, buuggaasu ku xoreyay shuruudiyadu iyo difaaciyadu anaga xaq baan u leenahay buuggeena hala guddoomiye. hadda ka hor waa idin sheegay buugga in la helo sharci maaha soo maa maya horta muqulkaan hayn ayaa maxkamadda si qarsoodiya waxaa nalagu yiri horta kiisku wuxuu ku bilowday qaab daahfurnaan ah oo meel kasta laga daawanayay, isla markiina wuxuu isku bedelay qarsoodi. waxaa sababayna garan mayno. haddana waa la daawanayaa kiiskaas, hadhow buu qarsoodi noqon karay, saas kaluu qarsoodi u noqon. annagoo aan goobjoog ahayn ayaa si qarsoodi ah waxaana lagu yiri nin la yiri DNA-ga baa laga waraystay, ayaa markhaati qarsoodi ah loo dhageystay. taasina waa wax xaaraan ah dhegeysiga maxkamadda, sababtoo ah waxaa sharci darro ah in dhegeysiga dacwaddu daahfurnaan uu ku bilowday uuna ku dhammaan waayo. annagoo aan goobjoog ahayn ayaa nin la yiri waa la dhageystay. waxaan kaloo idiin sheegaynaa in khuburadii la yiri buugga waa nimankii la yiri DNA-ga haysteen ay tageen, dalka tageen, maalin joogeen kiiska marka la mudooyay tagaan. sababa ay tagaana ma naqaan. maxkamadda waxaan ka codsaynaa nimankii DNA-ga baaray in la keeno, hadhow waa kusoo daraynaa haddii aan layno. waxaa iska baaranayay DNA-ga hal dhinac oo isku mid ah, sida CID-da xafiiska xeereerinta iyo dhinaca gabadha ayaa DNA-da lalahaa. wiilasha waa laga qaaday, aanaan aqoonsanayn waxay tahay qof in laga qaadiyo in dameer laga qaaday, midna waxaa iska baaranayay hal dhinac isku dhinaca. wiilasha waxaa lagu eedeeyey kursi iyo dil. sida uu idaacadda BBC-da ka sheegay agaasimihii laabku, wuxuu caddeeyey in gabadha aan kursi loo geysan oo aysan biyo ku dhicin buu caddeeyey. xereeriyuhuna wuxuu yidhi kursi baa loo geystay, biyana waa ku dhaceen. halkaa laisku hayofijiy. waa sababaha buuggana looga qarinayo ayay ka mid tahay. gabadha caasha iyadoo gabaraba wuxuu yahay haddana kondhom baa loo isticmaalay. gabar yaroo 13 jir ah, gabar bay ahayd. gabar kondhoma looma isticmaali karo, mana geli karo. waxyaabaha aan ku dirana ka mid tahay buuggana looga qarinayo. buuggaa maxaa loola tusi waayey? xaq baan u leenahay in la tuso. qodobka 161 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed ayaa noo ogolaanaya. waxaa ku qoran khubarada soo qaadsi in maxkamadda looga yeero, inay maxkamaddu dhaariso, in maxkamaddu ay dirto. maxkamaddana ma dirin. qodobka 7
waxaan maxkamadda ka codsanay in la hor keeno saraakiishii shaqada lahayd ee d n a-ga ee la kala oran jiray yaasiin siciid faarax iyo cabdirashiid. maxkamadduse codsigeygii bay si toos ah nooga diiday. annaga hal dhinac waxaana weydiinay, waxaan moodaa 3 xeeraliye inay haayeen. xeeraliyaha guud oo la faqiyay gudoomiyaha maxkamadda keligii la faqiyay, talada garsoore ee kale waxaa shirka ku malay. okay, garsoore ka mid ah garsooreyaashii dacwada qaadayay ayaa isaga baxay dhageysiga dacwadda. waa markii annaga noogu dambeysay dacwaddu ka baxay, xeeraliyaha duray. xeeraliyuhu wuxuu soo eedeeyey 10 eedaysane. 3 ka mid ah wuxuu yidhi waa eedaysanaha koowaad ilaa ka saddexaad. 7 wuxuu yidhi liis kiis ku jira, waxaa la yidhi nimankaa eedooda soo gudbi. wuxuu yidhi halaii hayo ayaamo. garsoore ka mid a garsooreyaashii baa wuxuu ku yidhi lagu hayn maayo, xeeraliyaha iyo eedaysanayaashu waa noo siman yihiin maxkamadda horteeda, sidaas la adligeed soo eeda haddaa eedeysa. wuxuu ku yidhi ma adiga qareen u noqoniyo u doodiyo difaac haddaa difaacsa. halkaasu ka yidhi garsoore waxaana qajirsadina waa ka baxay. kiiskii maalinta halkaas ku istaagay. haddana waxaanu maqalnay nin la yidhi d n a ayaa laga waraystay, ayaa si qarsoodi maxkamadda dhexdeeda loogu waraystay. garsoorihii kiiska hogaaminayey iyo ku-xigeenka xeeryaha guud ayaa waxaa moodaa inay si gaara isla ogaayeen in kiiska si kadis ah durbe loo soo gebagabeeyo. sababtoo ah markii halkaa uu soo istaagay xeeryaha guud, ku-xigeenka xeeryaha guud maxamed xareed oo hor taagan ayaa wuxuu maxkamadda ka codsaday soo gebagabeeya kiiskayga. gudoomiyihii maxkamadduna wuxuu soo gebagabeeyey. annaga waxaa la yidhi gebagabaysta. waxaan ku nidhi gebagabaysan mayno, markhaatiyaal baa noo jooga, khuburaanu keennay oo noo joogta, intaasaa la dhegeysanaya la dhegeysta. maya waa nalaga diiday. halkaasuu hal dhinac uu ka ahaa. ilyas oo ah aabbaha marxuumadda ayaa waraysi uu b b c da siiyey v o da siiyey. wuxuu ku sheegay in guddoomiyaha gobolka mudug uu sheegay in 4 eedaysane lasoo qabtay oo loo soo qabtay kiiska caasho. laba ka mid ahna wax lagu waayey oo dayuuro la saaray siduu sheegay. ilyas waa aabbihii dhibanaha ahaa ee gabadha dhalay. nina baadidiisu hadday ka maqan tahay qofkii loogu tilmaamo buu isaga dhigaya. guddoomiyaha gobolkan waa haynaa codkiisii oo duuban halkaasuu ku jiraa, isagoo le 4 eedaysane ayaa loo soo qabtay. ilyasna haddana idaacadda maruu u warramay wuxuu sheegay in 4tii eedaysane 2 ka mida la sii daayey. 2 ka mid ayaa sii dayn kara. yaa sabaaroo sii daayey. waxaa sii daayey laamihii soo qabtay, iyagaana laga rabaa. waxaan aaminsannahay muwaakiliintayadaas inaysan dambigaa gelin 3 nin oo lagu been samaysanayo. waana sababta maxkamadda ayaa sii daysa. waxaa dhacday hadda ka hor ilyas okay, waxaa kaloo maxkamadda darajada koowaad aanu hor keennay gaari loo jaray waaran oo maxkamadda darajada koowaad ee gaalkacyo ay u jartay waaran. gaarigaas oo hadda ka hor ay sheegtay saantii dhashay caaisha allahu naxariistee inay tiri gaari gooxiisaan maqlay iyo digta meydka lasoo dhigay. wuu cararay. gaarigaas tuhumanu ahaa, eedana maxkamadda kuma soo dara mana keenin. maxkamadda hooyadeed baana sheegtay. c i d du haddaba taliyaha guud ee c i d da ayaa hal maalin wuxuu u tegey eedaysanayaasha mid ka mida, wuxuuna ku yidhi hebel hebel maadiga sidii aada moodid in la siiyey magaciisa oo saddexan iyo tilmaantiisa oo gaara. wuxuu yidhi haa waa aniga. wuxuu yidhi dembiga adaa gale ma qiranaysaa? dadka kale waxba hamarmar. wuxuu yidhi qiran maayo, dembi aana gelina qiran maayo, dembi haysaarin. okay, cabdifataax waa muwaakilkayga iyo cabdishakuur oo isaguna eedaysanayaasha ka mid a. labadaba waxaa loo geystay jirdil lagu khasbayo inay dembiga qirtaan. waa ku yaaleen nabaradii ku yaalay. waxaa la jebiyey qodobka 24aad ee xeerka ee dastuurka dowladda puntland oo laleeyahay eedaysanaha ma aha in lagu khasbo qof dembi uusan gelin. haddii ay dembiga galeen oo ay ku caddahay oo caddayma loo hayo waaba ku caddahay, maxaa loo dilaya? waxaa is yeeshay xeeryaha guud ee dowladda puntland kiiskii uu kaga hor hadlay uu ka hor yiri 3 eedaysane ayaa dembiga galay oo xukunka maxkamadda darajada koowaad. taasna waxaa keentay fiqi badnaa. okay, xeeryaha guud ayaa maalin isaga keliya u tegey eedaysanaha. isna wuxuu u tegey fiiri c i d dii la rabay inay eedaysanayaasha dembigooda baadho, maalmo badan ku noqnoqoto, saacado kala duwan ay wax weydiiso, su-aalo weydiiso si ay kala hadlaan, ayaa hal maalin u tegey. xeeraliyuhuna sidoo kale, xeeryaha guudna sidoo kale hal maalin u tegey. sawir lagu eedeeyey oo xeerya ku-xigeenka uu soo saaray oo cabdifatax laga qaaday, eedaysanaha koowaad laga qaaday, uu sawir wuxuu kaga qaatay jeerka dhexdiisa. wuxuu ku yidhi kaalay adeer baan ku ahay, dembiga qoro, dembigaa waa gashay. walaalkaa dembiga ma gelin, ninka kalena dembiga ma gelin, adiga keliyaa galay, qiro dembigaan ku fududay. wuxuu ku yidhi aniga dembi aan lahayn haysaari, sida kii hore o kale.
waa waxa uu noo sheegay annaga muwaakilkayagu beenna ka sheegi maayo wiilka yarkaa. Okay, markii marxuumadda meydkeeda la helay ayaa dadkii dariska ahaa iyo dadkii isbitaalka geeyey kulligood taabteen. waxaa laga yaabaa in eedaysanayaashu ay wax ka qaadeen meydka maadaama ay daris ahaayeen ama ay dul tageen oo candhuuftada ku dhacday. dhagaysiga maxkamaddu wuxuu ahaa hal maalin keliya, iyadoo maalintii labaad lasoo xiray. 11 bisha ayaa la dhageystay kiiska culeyskiisu intaa leegyahay, maalinta labaadna waa lasoo xiray. kiiska waxaa lasoo gebagabeeyey isagoo guddoomiyaha maxkamaddu uusan kala tirsan garsoorayaashii kale, waana sababta ay qolkaas 2 saacadood ugu wada jireen. 2 saacadood bay qolka ku jireen, muran baana ka alasnaa. waxaa markii faqi batay duray guddoomiyihii maxkamadda rajada koowaad ehelada eedeysanayaasha oo yiri dhinac baa tahay. isaguna maxkamadda horteeda ayuu wuxuu ka qiray inuu dhinac yahay, dowladduna ay soo dirtay xukna laga rabo. annaga akhriya adduunka la joogno. wuxuu maxkamadda horteeda ka qiray markii la yidhi dhinac baa tahay, wixii annaga xukun baa nalaga sugayaa buu yidhi. maxkamaddu way naga diiday inay dhegaysato oo aan hor keenay markhaatiyaal caddaynaya meelaha ay ku sugnaayeen maalintii caasho la waayey. cabdifataax gurigoodu joogay 3 saac subaxnimo quraac buu doontay, 5 saac 6 saacna qadu doontay, casarkiina magaalada aaday, ilaa 3 saac habeenimo magaalada ku maqlaa. duhurkiina wiil baa la joogay. intaas markhaatimaan dabanayna maxkamadda horkeenu aanu keeno waa diiday. maxkamadduna waxay tiri qariina wax ku xukumay, qariina waxay tiri lama yaqaan, waa malaawaan qofka halkaas mari jiray gaariga baa jiri karaa. Okay, waxaa kaloo naloo sheegay dadkii dhaqay meydka, annagu meelo badan baan tagnay, 3 jeer 4 jeer gaar isaga daba noqday, in gabadhu ay lahayd allahu naxariisto meydkooda ciid cas ay lahayd. ciid casna ma ahayn gurigeeda, gurigooda mutulaala oo wada shamiita macal dayr macal baranda macal meel walba u ahaa. sidoo kale maxkamaddu waxay naga diiday inay nasiiso buuggii xeeriyuhu ku sheegay DNA-ga, buugga lifaaqa. haddana maxkamadda rafcaanka aanu aaminsanahay inay ka cadaalad badan tahay tii hore waan ka codsanayna. taliyaha guud ee CID-du wuxuu maxkamadda horteeda ka caddeeyey inaysan Puntland awood u lahayn soo saarista natiijada DNA-ga, isla markaana ay khuburo u dirsatay. buuggaasina qodobka aan qabsanay ee 161 ee heerka ciqaabta Soomaaliyeed wuxuu ka hadlayaa khuburada dhinacyada waxa diri kara labada dhinac inay goobjoog ahaadaan, dukumentiga laga qoro in labada dhinacba la siiyo haddii ay codsadaan. annagu buugga ilaahay haddar maana arag, mudmudug allah ku yaqaan baan u bixin oo waxaa la rabaa in lagu xalaalsado dhiigga masaakiinta. awal baa waxaan ka tiirayeysnay oo ka welwelsanay dhibka Caaisha allah naxariista loo geystay. haddana waxaa la rabaa in 3 eedaysane laysaga bixiyo kiiska. xeeriyuhu wuxuu la yimid qiiro jabaan wax la yidhahdo, halkaas isku ohiyey. waxaad moodaa balagarsoorka inuu hin wax u qaadaso qofaan qof dilay in la saarayo. halkaas isu ohiyey Caasha waa dhimatay, nimankaasaa dilay, hadda caddayn looma hayo. DNA wax qaaday iyo cid laga qaaday iyo meel lagu qaaday aan la aqoon, garsooro diray iyo cid goobjoog ka ahaydna aysan jirin ayaa la yidhi waa lagu xukumay muwaakiliinteena. waana xaqdarro iyo baadil weyn oo qof islaama in dil isaga xukumo shariicada islaamka ka garansan. garsooraha go-aanka gaaray DNA-da anna ma aqaan, isna ma yaqaano, weligiina go-aan kama saarin. waxaa go-aanka loogu qaataa innaga maxkamadeena DNA-ga waxaa looga qaataa similarity-ga ilmaha la isku hayo bes, wax kale oo dhaafsiisan iyo dembi intaa laag midna maaha. sidaas darteed waxaan maxkamadda rafcaanka ka codsanaynaa inay jebiso xubkaas baadilka. waxaan siinayaa oo adilooyinka saaraya qaranada kale. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. وصار يا أدل سوما بس واحد كلا قدري ما وأنت صارنا إحنا حنا وحبك كلا قدر بايو. واضح لي. هذا كتوجه محكمة شرفت له. على جوجه إمام. arrintu keliya hadda waxay taagan tahay doodafeedda waa laydin siinaya. markaa doodafeedda haddaa rabtaan safka gala, laakiin hadda first number waxaa la akhriyayey wuxuu ahaa rafcaanka aada soo qaadateen iyo jawaabta xeer ilaalintu ka bixinayso. xeer ilaaliya fadal. اللهم صل على سيدنا نبينا محمد وعلى ال محمد وصحبه وسلم. اما بعد
dadka maqashii amaa bacd maxkamaddu waa salaaman tahay, xeelaalintu waa salaaman tahay, qareemada dhammaan dhegaystayaasha assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. anigoo ah qareen cabdisaaq maxamed faarax, ahna qareen ka tirsan ururka qareemada tawakal, qareenna u ah muwakilkayga cabdishakuur maxamed dige, kana hormatalaya maxkamadda rafcaanka gobolka Nugaal. waxaan rabaa yare inaan anigu war badan geli maayo, 4 nuqdo yar baan rabaa inaan ka hadlo oo xukunkii darajada koowaad aan kaga hadlayo. mudane guddoomiye garsoorayaal, muwakilkayga waxaa lagu soo eedeeyey in uu ka qayb galay dilkii marxuumad Caasha Ilyaas, waxaana maxkamadda darajada koowaad ku xukuntay dil iyadoo u daliishatay in laga helay DNA. muwakilkayga daliilkaas oo noqon kara qaraa-in markii shareecadda loo eego, isagoo nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu yidhi in lagu xukumo cuquubaad khada ah qof waxaa ka khayroon in la sii daayo qof cuquubaad qaba lagu khaldamo waa ka khayroon. asbaabta rafcaankayga markaan usoo gudbo, mudane guddoomiye garsoorayaal, waxaan rafcaan ka qaadanay sida uu qabo qodobka 230 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed. xukunka aan sumadiisa kor kusoo sheegnay waa la wada sheegay, xukunka waa mid la wada iyo waadaxa kor kusoo xusnay. asbaabta aan rafcaanka uga qaadanayna waa sida hoos ku qoran. mudane guddoomiye garsoorayaal, muwakilkayga maxkamadda darajada koowaad waxay ku xukuntay xukun dil ah, mana aha mid cadaalad ku fadhiya, waayo shaksiga eedaysanaha waxa uu xaq u leeyahay markii la eedeeyo in uu helo qareen difaaca. haddii uusan awoodinna waxaa waajib ku ah in maxkamaddu u qabato ama dawladdu u qabato. dawlad iyo maxkamaddu way israacsan yihiin sida uu qabo dastuurka Puntland qodobkiisa 25 iyo qodobkiisa 27 qodobka 25 farqadiisa 3 iyo qodobka 27 farqadiisa 6. sidoo kale qodobka 15 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed isaguna sidaas oo kale ayuu wuxuu siinayaa xuquuq qofku inuu yeesho qareen markii kiisku yahay xuquuqiisu gaaro 10 sano. isla sidaa waxaa qaba nidaamka garsoorka qodobkiisa 14 oo qaanuunka ayay maxkamaddu garab martay. mar haddii marka muwakilkaygu ma lahayn qareen, wax qareena ma uu lahayn, intaas oo qodob ayaa maxkamaddu horta garab martay. waxayna ahayd xaq buu u lahaa inuu istifaaco. qof aan istifaacilna laguma xukumi karo yani xukun noocaas oo kala. mudane guddoomiye garsoorayaal, maxkamaddu waxay muwakilkayga ku xukuntay xukun dil ah. waxay xukunkeeda ku caddaysay inay shareecadda u cuskatay. shareecaddu waa mid cad. xukun dil ah wuxuu ka sababoobaa 2 arrimood midkood. qofka markii la dilaayo oo dil lagu xukumayo, shareecaddu 2 arrimood buu ku sababoobaa. qodob 3aad oo dil ka sababa ma jiro. qiraal in la helo, qofku shakhsigu qirtay qiraalkaas oo ugu yaraan 3 jeer 4 jeer qofku ku celceliyay dilkaa inuu geystay, dhibkaa inuu geystay, arrinkaa inuu dambigaa galay isagoo xora oo aan lagu khasbin laguna bahalkeyn. qiraalkaa maxkamaddu ma helin. qodobka 2aad oo dilku ka sababoobo oo ku sabab ku imaan karo waxa weeye markhaanti cad bayino. 2 nin hadduu dil yahay, 2 nin oo caadiliina oo la yaqaan oo la taskiyeeyey baa dil loogu xukumi karaa oo caddeeyey. hadduu sina yahayna waa gaar, waa 4 qof, 4 nin bay noqonayaan. arrimahaas yani uu ka sababoobay dilku ka sababoobo waxaa ka muuqata xukunka midna inaan lagu xukumin. qaraa-in baa lagu xukumay. qaraa-inna xuquuq baa ka sababowda. waxa qaraa-inta la yidhaha xuquuq baa ka sababowda, laakiin dil kama sababoobo. waa shareecadda laftigeeda bay maxkamaddu garab martay iyo qaanuunka labadaba. askariga hadalka waxay ka mid tahay qodobka ugu muhiimsan ee aanu ka soo qaadanay, rafcaan ka soo qaadanay, waa qodobkaas ka mid yahay. mudane guddoomiye garsoorayaal, muwakilkayga markhaanti wax ku caddeeyey
si qaanuuni ah ma jiro, mana jiro qiraal uu bixiyey sida ay qabaan qodobada 68 iyo qodobka 149 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed. qodobadaas oo caddaynaya qiraalku waxa uu yahay iyo markhaantiga qodobo kala caddaynaya. ma aha mid loo soo bandhigay waxa laga sheegay oo maxkamaddu yacni mataa cusubtay ama hay'adaha baaristu keeneen sida la sheegay DNA-gu ma aha mid la soo bandhigay oo maxkamad laga hor caddeeyey oo qareemada la siiyey oo eedaysanaasha la siiyey oo dadweynaha lagu qanciyey. maxkamaddan oo kalena waxaa fiican inay daah furan tahay oo ay yacni kulli dhammaan wax alla wixii yacni matqan la soo jeediyo dadka iyo dadweynaha iyo eedaysanayaasha iyo qareemada laga qanciyo. sidaa daraaddeed DNA-gu ma caddaynayo, ma noqonayo markhaantina noqon maayo, qiraalna noqon maayo. wuxuu noqonayaa qaraa'intana waxaa ka sababa xuquuq, laakiin kama sababo dil, kama sababo. maadaama la sheegay in ay jirto DNA DNA-da waxa la yidhaahdo oo la keenay buugga la keenay ma aha mid laga qanciyey eedaysanayaasha qareemadooda iyo ummadda kale midna. xaqna waxa uu leeyahay qofka shaksiga eedaysan iyo qareenkiisa waxa lagu eedaynayo cad inay helaan xaqiiq ay ku qanci karaan. qofka xaqiiq ku qanci karo inuu helo. sidaa daraaddeed waxaan maxkamadda usoo jeedinaynaa buugga iyo DNA-ga in si daah furan oo aan ku qanci karro oo loogu yeero cid aqoon u leh oo fasirta oo taam yeesha in la helo baan maxkamadda usoo jeedinaynaa. waa soo jeedid muhiima. mudana guddoomiye garsoorayaal, sida ka muuqata ama ku cad eedda hay'adaha baarista, muwakilkayga waxaa lagu soo eedeeyey in la yidhaahdo cabdishakuur maxamed dige ina khadiijo maxamed, waxaana hooyadiis la yidhaahdaa khatro maxamuud. halkaas waxaa eedda ka muuqata in aan muwakilkaygu eed rasmi ah oo magac rasmi ah oo lagu eedayn karo. magaca hooyadu wuxuu ka qaalisan yahay oo ka duwan yahay magaca aabbaha. haddii magaca hooyadu khaldamo, muwakilkayga magaca hooyadii waxaa la yidhahdaa, waxaa horta lagu soo eedeeyey hay'adaha baaristu ku soo eedeeyeen in la yidhaahdo khadiijo maxamed hooyadiis, lamana yidhaahdo. waxaa hooyadii la yidhahdaa khatro maxamuud. waa khalad hay'adaha baaristu galeen. magaca aabbuhu wuxuu ka qaalisan yahay magaca hooyada. magaca aabbaha cabdishakuur maxamed dige, intaasoo nin baa noqon karaa, intaasoo qof baa la bixi karaa, intaasoo qof baa la odhan karaa, laakiin waxaa dadka lagu kala sooco oo rasmiga ah waa magaca hooyada. halkaa waxaa ka cad muwakilkaygu inuusan ahayn ninka DNA-ga leh. waxaana leeyahay oo maxkamadda u caddaynaya, mar haddii magacii hooyadii la khalday, DNA-gana cid damaanad qaadi karta oo odhan karta waa sax ma jirto. markii la eego qaanuunka iyo shareecaddaba, waxa khaladka hadduu salka ka bilowdo kor buu ku dhammaadaa. maxkamaddu waa mahadsan tahay. wixii hawlahayga dooda afeerdaydana gadaal baan ka sheegan doonaa. anigu ma rabo hadalka inaan ku dheeraado. 4 qodob oo qaanuuniya oo shareeco ah baan anigu ku difaacayaa muwakilkayga. maxkamadduna waa mahadsan tahay. maxkamadda
qaran cabdirasaaq wuxuu yidhi xukumane cabdishakuur maxamed dige qareen ma lahayn buu yidhi raacafaankiisana hadda ayuu keenay sidaa awgeed raacafaankiisu waa mid ka dhacay maxkamadan taa iyada raacafaankiisa waa mid waayo go-aanka maxkamadda darajada koowaad waxay gaartay 12 May haddana waxaan ku jirnaa 22 Juun 10 maalmood ayaa ka soo wareegay muddadii bisha ayadoo xaqa u lahaa sidaa awgeed qareenka raacafaanku uu soo xareeyey waa qareen waa raacafaan aan jirin maxkamadduna ha eegto qodobka 216 xeerka habka ciqaabta Soomaaliya maxkamadduna waa mahadsan بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم kiiska dhagaysigiisi maanta halkaasaynu ku joojin doonaa halkaasaynu ku joojin doonaa berri waa axad maalinta isniinta ah ayaynu kiiskaa isugu soo noqon doonaa maxkamaddu wax badan dhammaanteen haddaynu talada wadaagno oo qareennada cududaarkooda aan tixgelinno oo berri ka dhigano ka warramo aqlabiyadda waa lagaalaya amus okay berri 3 saac oo subaxnimo insha allahu tacaala ayay jalsada inoo ku xigtaa halkan ka bilaaban doontaa dhegaysiga wixii haray waxaan intaa ku daraynaa berri daraf waliba gabagabadiisa ha ku soo daro ma awaamirta maxkamadda ay hoggaansamaysaan ma 60 aa wadanaysaan annagaa gaari doona insha allahu tacaala kiisku markii la gabagabayo baxhi buu gelayaa ku dhawaaqidiisu wakti kaley noqon doontaa ma noqonayso middan berri ma noqonayso hala fariisto dadku ciidanku ha shaqeeya berri markaan kiiska dhegaysano oo cid waliba ay wixii u harsan ama caddayn ha noqoto ama cod ha noqotee ay la timaado maxkamadda oo ay maxkamadda usoo bandhigto kiiskana la gebagabeeyo maxkamaddu macnaha waxaan idiin sheegaya jadwalka maxkamaddu ku socon doonto maxkamaddu markaa kabacdi kiiska waxay u diri doontaa xukumkaas waxay ku dabaqi doontaa baxhi aada u fara badan iyo wax alla iyo wixii ay u baahato oo facility ah oo ay u aragto inay xaq yihiin qaabkay ula soo bixi lahayd ama ay u baaran lahayd iyadu kabacdi maalinta xukumka lagu dhawaaqayo maxkamadda ayaa dib u iclaamin doonta insha allahu tacaala saasay noqonaysaa maxkamaddana way noo xiran tahay waa inoo berri iyo 3 saac oo subaxnimo xeer ilaaliye ninka la yidhaahdo jarkunadan waa inaad ku soo dartaa iyadana berri haddii rabbi idno jawaabtiisii aad soo bandhigtaa insha allahu tacaala waana mahadsantihiin ummadda meesha isugu timi waanu salaamaynaa waxaanu leenahay saraakiisha sare iyo madaxda iyo dhammaan waanu idin salaamaynaa waxaanu leenahay ilaahay waxaan ka barinay sida sawaabka inuu na waafajiyo idinkana ilaahay inuu khayr idin siiyo raxmaddana ilaahay inoo shubo maxaan sheegay waxay weydiiye xaaladdu meesha maanta wixii dhacay maanta dee kiis bay maxkamadda racfaan ku dhegaysatay maanta ay taariikhdu tahay 22 Juun 2019 maxkamadda darajada koowaad gobolka Nugaal waxay dhegaysatay kiiskii Caaisha ay racfaan ka soo qaateen 3 xukumane ee dilka lagu xukumay fadhiga koowaad bay yeelatay beritana fadhiga labaad bay yeelanaysaa haddii alla wixii su'aalaha diyaar baan fadhiga labaad iyo gabagabada iyo wixii dooda
laakiin ilaa iyo hadda cadeymo lagu qanci karo qareennadu maysan keenin oo aan ahayn dood afeydna maxkamad kama socoto. maxkamad waa itus oo itaabsi, sidaanu darajada koowaad maxkamaddii darajada koowaad u tusna u taabsiinay qareennada iyagaa laga rabaa cadeymahaanu keenay inay tusaan oo taabsiyaan maxkamadda racfaanka in hay-adda forensic scienceska puntland baaristii ay samaysay iyo eedeynta xalaalintu soo sameeyey inay waxba kama jiraayin. laakiin maanta o dhan hadday ku meeraysaan d n a iyo waxbaana laga qariyey hana la siiyey ayagaa ka hawaabsan nidaamka qaanuuneed. haddii aad noo soo koobto idinku dhankiina cadeymaha keentay maxkamadda darajada koowaad baaba ku xukuntay dil toogasha, taasaanu keennay. maxkamaddii darajada koowaad yaanu cadeymahaanu keennay waxay ku xukuntay dil toogasha. xeeraal qareebadu waxay codsadeen khabiirkii baaray DNA-da in la keeno maxkamadda. hadday maxkamadda ogolaato waa la keenayaa, laakiin dhegaysigiisa xeer gaara wuxuu dhigayaa in si qarsoodi loo dhegaysto qareennada dhinacyada dacwadda goobjoogka ah, xeerlaalinta iyo qareennada iyo maxkamadda waa lagu dhegaysan karaa sida kii hore oo kale loogu dhegaysta. diyaar baanu nahay inaan hor keenno. taasi waa mid ka baxsan kiiska, wax kale weydiiy. xeerlaaliyaha guud weydiiye, ninkay khusayso weydiiye, aniga ima khusayso taas.